السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan mar kale. Maanta fursadda aan jeclahay inaad ka faa'iidaysataan baa waxay tahay shaqadan waa livelihoods and food security assistant. Hay-addu waa NRC, Norwegian Refugee Council. Ciddi taqaana marka shaqadan maanta la soo dejiyay oo taariikhdu ay tahay 16 bisha 8 2025. description keeda waa kana marka taa muhiim ma aha kaliya oo waxa muhiimka waxay tahay waxyaalaha laga rabo haddii aad rabtid inaad shaqadan muxuu ahaayey ka shaqaysid. halkan waad u jeedaan faahfaahin dheeraada kasii bixin mayno. haddaad English taqaanid sharaxaad uma baahnid balse muhiimaddu waxay ku tahay kaliya shaqadan inaad muxuu ahaayey aad ogaatay inay jirto. shaqadan marka magaalada qofku ka shaqayn doono haddii uu ku guuleysto ayaa waxay tahay magaalada Dhuusamareeb, waa gobolka Galguduud ee Soomaaliya. Dhuusamareeb sida muuqaalka idinka muuqata waa magaaladaas. sidoo kale waa full time shaqadu. waxyaalaha laga rabo markii si guud aan u eegno waxaa ka mid ah in degree aad haysatid oo education level ah. sidoo kale ugu yaraan sanad ama 2 sano ilaa 2 sano inaad muxuu ahaay khibrad shaqo aad leedahay. khibradda shaqo marka waxay si gaar ah u taabanaysaa dhowr qaybood. waa kuwana dhowrka qaybood marka iyagana halkanaad muxuu ahaay ka fiirin doontaa. waxayna aad u taabanaysaa maadaama barnaamijkii NRC ay ka shaqaysa uu yahay humanitarian field uu yahay, waa in shaqooyinka aad soo qabatay qaarkood ay yihiin kuwo gargaarka bini'aadanimo la xiriira. sidoo kale bachelorka markii si gaar ah aan u sii fiirino waa social science, development studies, social worker, public administration iyo wixii la xiriira. marka aad bay iyadana u fududahay shaqadaasi. marka waa fursad bay kuu tahay haddii aad ka faa'iidaysanaysid. linkiga muuqaalka hoostiisa ah ayaana kuu soo dhigayaa si aadan meel fogba u aadin. taasi waa shaqada koowaad ee muhiimka ay tahay inaad ka faa'iidaysataan akhyaaray.